waxaa ka socda magaalada London iyo guud ahaanba dalka UK iyo qabanqaabo ballaaran oo lagu dalbanayaba in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo Paul iyo xaaskiisa Rachel kuwaasoo gacanta u galayba koox burcadbade Soomaaliyeed 23 Oktoobar 2009 Paul iyo Rachel waa dad waayeel ah howlgab ah gablan ah oo wax aruur ah aysan haysan isla markaasna waa dad shacab ah oo wax dhaqaala iyaduna aan lagu ogeyn waxayna mariyeen markii la qabsanayay badweynta Hindiya waliba xeebta dalka Soomaaliya meel aad ugu fog biyaheeda dalka Britain sida aynu wada ogsoonahayna waxa ku nool 100 kun oo Soomaali ah oo ku haysto nolol nabadgelyo deganaansho shaqo waxbarasho ganacsi caafimaad iyo xanaano buuxda ugu dambeyntiina wax garadka iyo odayaasha ay ka codsanayaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Haradheera inay sida ka qayb qaataan basiideynta labadaasi qof ee lugta magaalada Haradheera waxaana dawladda Britain iyadana ku gacan saartaba inay wax dhaqaalaha ku bixiso basiideynta labadaasi ee dalka Britain u dhashay ee lagu haysto dalkeena hooyo Soomaaliya waxaana maanta isugu yimidba magaalada London gaar ahaan xaafadda Camden Center oo ay markaasi ka soo qayb galeen dadweyne iyagu markaasi dalbanayay in la sii daayo Paul iyo daawadayaal waxaynu soo gaarnay xilligii gabagabada aynu soo gabagabeynay shirkii maanta la isugu yimid si loo sii daayo lamaanayaasha Ingiriiska lagu haysto dalkeena hooyo ee Soomaaliya iyadoo waliba jaaliyada dhabarkayga taagan ay ka qayb qaadatay sidii loo sii deyn lahaa iyagoo waliba aad arkaysan kana daawanaysan TV-ga sidii qiimaha lahaa ee loo soo gudbinayay shucuurta Soomaaliyeed ee iyagu ku dhaqan magaalada London iyo waliba dalka UK dhabigiisa waxaan jeclahayba inaan markaani aan wareysto jaaliyada iyagoo waliba aan ugu mahadcelinayna inay noo suurtageliyaanba inaynu wareysigan ka qaadno waxaan wareysanaynaa Suldaan Maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kulli halka kan isugu yimi ummadii Soomaaliyeed dhamaanteed waxaana dareenkooda ay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin labada qof ee lamaana ah ee lagu haysto Haradheera cilnayna sida qadarinta mudan ay maanta barnaamijka u ka fargarayeen Maxamuud Boocami Axmed inta haddaan ka gudbo maanta waxaan isugu nimaadnay 800 oo qof oo Soomaali ah Camden Hall meel ku taala in la sii daayo oo xorriyadooda dib u helaan laba qof oo lamaana ah Paul iyo Rachel oo Soomaaliya 100 bari ka badan lagu haysto Axmed Cabduqaadir Axmed Wariye ETN London